بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa inaan ku daro ummadda reer Soomaaliland dardaaran ah war waxaynu ka cabanaa doorashooyinka cidaynu soo saaro golo deegaan baynu dooranay waa ka cabanay golo baarlamaan baynu dooranay waa ka cabanay madaxweynayaal baynu dooranay waa ka cabanay waxaynu u baahanahay inaynu iska hubsanno marka ugu horeysa cid aynu dooranayno waxaynu u baahanahay beelaha hadii lagu dooranayo di gobol lagu dooranayo cid la soo sharaxayo ee la dooranaya inay noqoto cid u qalanta mas'uuliyadda ummadda reer Soomaaliland ay u qaadayso taas baynu u baahanahay aynu maanta ka fikirro musharaxiinta reer Soomaaliland annagu axsaab baanu nahay dad aad fara badan baa noo yimaada nooc kasta leh ma wada kala shaandhayn karo waxaan u baahanahay reeraha laftoodu inay qayb ka qaataan shaandhaynta dadka waxgaradka ee liidka ah Soomaaliland jooga inay qayb ka qaataan in la soo saaro dad berri ka maalin aynaan kala dhada qabsan berri ka maalin aynaan kaga caban berri ka maalin aynaan dariiqyada ka ooyin ee qaada mas'uuliyadda ay ummadda reer Soomaaliland ugu ballan qaadaan hadday tahay golo deegaan iyo hadday tahay golo baarlamaanba waad ogtihiinoo waxa doorasho inoogu dambeysay doorashadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muuse Biixi ku soo baxay 2007 Muuse aynu soo saaray maanta 2017 maanta aynu soo saaray waxaynu soo saaray madaxweynaha maanta haysta dalka Muuse Biixi Cabdi maanta isaga loogu cabasho badan yahay maanta waxa loogu cabasho badan yahay Muuse oo 3 sano aan wali gaarin maanta waa arkaysan maalin walba cid ay dhul isku haystaan cid maxaan ku ka cabanaysa baa soo taagaysa waa dadkii shalay lahaa maxaan ku idhaahdaa Muuse waa awliyo ummadda loo soo diray ayaa maantana cabatinkoodii ay meel la iska taago iyo TV-yada waa ogtihiin waxa ugu dambeysay wax la imeed maxaa ugu dambeeyay iyo kala siisido wiigi haddayna soo dhaafay waa arkaysan wixii ka taagnaa galbeedka Hargeysa ma jecelin waa madaxweynihii qaranka inuu ceeboobo ma jecelin inay ummadda qof walba isaga isqabsadaan madaxnimada waxa ugu muhiimsan ee laga dhaxlaa waxa weeye magac wanaagsan inaad kaga tagto adduunyada waa in ummaddu kugu xasuusato wax wanaagsan waxa laga dhaxlaa ama magac wanaagsan ama magac xun oo ummadda qofkii ku xasuustaaba markuu ku xasuusto ku habaaro waxaanu jecelahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu kaga tago waa sidaan anagu samayn lahayn haddaanu xisbiga uu ku guuleysan lahaa gudoomiyaha iyaga iyo madaxweynaha iyaga aanu kula dardaarmi lahayn baanu kula dardaarmay isagana maadaama uu nasiibku keenay ummadda maxaan ku dhahay inuu hogaamiye u noqdo waxaan kula dardaarmaynaa inuu noqdo madaxweyne ka taga legacy iyo magac wanaagsan ka taga waxaan kula dardaarmaynaa inuu xalliyo ishaysadka iyo qaylada maalin walba taagan ee magaciisa iyo sharafta uu ummadda reer Soomaaliland u sida ay ku waxyeeloobayso ama ku dhaawacmayso arrinta inuu xalliyo inaanay maalin walba islaan ishaysan waanu jecelahay anagu madaxweynaha qaranka arrintaana inuu maxaan ku idhaahdaa laakiin way dhacday waxaan leenahay war dadka imanaya dambe aynu ka digtoonaano hadday tahay ummadda reer Soomaaliland anigu taan u dirayo hadday tahay madaxweyne ka dambeeyo Muuse iyo hadday tahay taynu maanta u dareerayno golaha baarlamaanka iyo golaha deegaanka labadaba dad wanaagsan oo mas'uuliyad qaadi kara oo ummadda ilaahayna kaga baqaya ilaahayna subxaanahu wa ta'aala quraankiisa wuxuu ku yidhi inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadna ma bedelo haddaana iyagu ka soo bilaabin naftooda oo bedelin waxaynu u baahanahay isbedelku inuu ka soo bilaabmo shacabka reer Soomaaliland ee codaynaya isbedelku kama bilaabmayo mas'uulka keentaan inta si kasta oo maxaan ku dhahdaa lagu keeni karo lagu keeno hadhow aadana isbedel ka doontaan taas ma suurta galayso aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland aad iyo aadna mar labaad waxaan ugu hambalyeeynayaa guddiga doorashooyinka shacabka reer Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in lala shaqeeyo oo ay ugu horeyso arbacada barimaha dambe in lala shaqeeyo guddiga doorashooyinka lagala shaqeeyo system xalaala oo nidaam oo wanaagsan oo cadaaladi inay u dhacdo doorashooyinka soo socda oo aanay inagu soo noqon cabatinkii faraha badnaaye aynu doorashooyinkii hore ka qaadi jiray aad iyo aadna waanu kalsooni wanaagsan baanu ugu qabnaa aad iyo aadna waanu salaamay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu